بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتو عن داود يالكوسو هذا برنامج كمذا برنامجyada taxanaha ah ee aanu idinkaga soo gudbinayno kulamo su'aalo ay ku weydiinayaan guddida joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya. barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay su'aalo ay guddiga garsoorka baarlamaanka Soomaaliya weydiinayaan wasiirka wasaaradda garsoorka. kulankan waxa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Caawad. waxaan soo dhaweynaynaa wasaaradda cadaaladda wasiirka wasiir ku-xigeenka wadannada kale dhammaan ku soo dhawaada kulankan ay guddiga aad isku shaqada tihiin ay ku sugayeen in ay qorshihii wasaaradda oo faahfaahsan oo daba socda barnaamijkii uu ra'iisul wasaaruhu golaha shacabka soo hordhigay in ay idinka dhageystaan wixii oo su'aalo oo soo jeedintaas ku saabsan ay wax idinka weydiiyaan aadna isla garataan habka wada shaqaynta guddiga iyo wasaaradda ka dhaxayn doonta sidoo xoroosaad ku qabana mid ku salaysan iskaashi iyo in la iskaabo ku salaysan ayaan waxa weeye idinku soo dhaweynaynaa waa gudoomiyihii guddigu waa naga maqan gudoomiye ku-xigeenkii guddiga jooga waxaan marka hore siinayaa gudoomiye ku-xigeenku inuu kelmad soo dhaweyna ka yidhaahdo kadibna waxa weeye wasiirkaan ku soo dhaweyn doonaa wasiir ku-xigeenka iyo akhyaarta kala socoto gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo labaanada. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. aadan ugu faraxsanahay maanta runtii maalintii ugu horreysay oo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo annaga aan kulano inay noqoto. runtii hadda maadaama gudoomiyaha uu sheegay ay naga dhexayso shaqo runtii aad iyo aad u weyn oo hadda oo ah cadaaladda dalkeena meesha ku burburay oona haddii hadda cadaalad dalkan uu helo ama shacabku uu helana rajo weyn laga qabo runtii dalkeena uu dib u soo kabto. runtii waajibkaas marka si aan u wada guudnaan maanta u ballanay inaan kow aan isbaranno maxaan ku wada hadaaye hadda qorshihii aan ku wada shaqayn lahayn maxaan ku wada hadaaye aan kala guddoonno. runtii marka waa idinka haynaa sida hadda guddoomiyaha uu sheegayna waa idin soo dhaweynaynaa shirka hadda inuu noo furmo aan hadda iswaraysanayna runtii waxba kama qabno waa mahadsantiin. bismillahi raxmaan raxiim. guddoomiye dad noo ogolaatay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa anna isbarashada dhinacayaga aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiye xigeenka guddiga garsoorka ama guddiga cadaaladda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan hor nimaadno wasaaraddii oo waxba aanan ka maqnayn. ani waxaa la yidhahdaa cabdillaahi axmed jaamac ibkajiir wasiirka wasaaradda cadaaladda, fahmo waa wasiir ku-xigeenkayga, xuseen waa BS-ka muxuu ahaa wasaaradda, xamza waxa weeyaan khabiirka inkastoo hadda uu ku magacaaban yahay sharciyada eega. guutaale waxa weeyaan khabiir sare oo isagoo wasaaradda ka shaqeeya, iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa shaafici oo isna ah la taliye xagga sharciyada. intaasaan ka koobannahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu guddigiinan sharafta leh aan hor nimaadno aanu ka wada hadalno barnaamijka. qaar waa la idiin qaybiyey, qaarna waxaan u daynayaa in muxuu ahaa howladeennada ay ka idiin faraaqeeyaan oo idiin caddeeyaan wixii su-aalo ah waa idin weydiinna. waxaan malinayaa dhammaan in la wada haysto especially barnaamijka ay ku socon doonto muxuu ahaa wasaaraddu ama aanu qorshaynay, inkastoo ay dhexdiisa ka maqantay tafsiirtii faraha badnayd ee loo baahnaa. laakiin intaanu u gudbinay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa weeye intii nuxurka ahayd ama aanu ku tala jirray inaanu qabanno ama aanu isleenahay muxuu ahaa, laakiin tafaasiil fara badan oo day to day activitieska waa ay ka maqan yihiin. marka waxaan rabaa muxuu ahaa BS-ka iyo fahmo oo anugu cusbahay fahmo oo khabiirku ah
nooca wasaaradda wasiir xigeen horena ka soo ahaan jirtay iyo garyaqaanada intaba inay muxuu ahaa idinka qanciyaan sida ay u soconayaan ama sida howlaha iyago aan ugu talagalnay haddana waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo bska suu ku sharxo wixii mudana gudoomiye ku-xigeen gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo awqaafta gudoomiye ku-xigeenka guddiga cadaaladda iyo arrimaha awqaafta xogeyaha guddiga xubnaha kale ee guddiga cadaaladda aad ayaan kugu mahadnaqaynaa inaan siisaan fursadda inaan qorshaheena aan idinla wadaagno mudanayaal sida aad wada ogtihiinba garsoor caadil ah muhiimadda uu leeyahay bulsho iyo ummad iyo dowladnimada Soomaaliyeed waa wada ogsoonahay waxaan kaloo garawsanahay in burburka ku dhacay dowladnimadii dhexe ee Soomaaliya raadka uu ku yeeshay hay'adaha cadaaladda iyo sareyntii sharciga iyo kala dambeynta waxa burburay kaliya ma aha aqabkii iyo dhismayaashii hay'adaha cadaaladda lahaayeen waxaa kaloo burburay raadkii cadaaladda oo idil ayaa burburay waa dareemi kartaan heerka dib u dhiska oo u baahnaan karo nidaamka cadaaladeed in la soo nooleeyo haddaba si loo howlgeliyo nidaam cadaaladeed oo hufan waxaa laga maarmaan ah in dib loo habeeyo hay'adaha garsoorka oo ugu horeyso guddiga adeega garsoorka oo ah hay'adda ugu sareysa maamusha oo nidaamisa hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka guud ahaan intaba xeerka nidaamka garsoorka jiray waagii hore 1962 ayaa la sameeyey waxaana laga maarmaan noqotay in dib loo eego si loo waafajiyo nidaamka federaalka oo dowladnimadeenu ku salaysan tahay iyadoo laga duulayo arrintaas waxaa dib u habeyn lagu sameeyey xeerkaas waxaana la hordhigay oo horyaala xukuumadda Soomaaliya nuqul kamida xeerkaasna wuxuu yaalaa hortiina waxaa sidoo kale dhismaha hay'adaha cadaaladda iyo guud ahaan garsoorkaba waxaa saldhig sidoo kale u ah oo iyadana meesha ka maqan maxkamadda dastuuriga ah dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ujeedada laga leeyahay waxa waaye inay fasirto nidaamka cadaaladda iyo dastuurka guud ahaan dalka uu leeyahay xeerkii lagu dhisi lahaa hay'adda maxkamadda dastuuriga waxaa la horgeeyay golaha wasiirada waxaana la soo marsiiyey inta aan la horgeyn wada tashiyadii laga maarmaanka ahaa nuqul kamida sharciga lagu aasaasin lahaa maxkamadda dastuuriga wuxuu yaalaa sidoo kale hortiina wasaaraddu muddadii ay jirtay dowladihii ku meel gaarka ahaana wax badan ayaa soo qabsoomay sanadkii la soo dhaafayna wax badan ayaa qabsoomay xukuumadda hadda jirtana inta ay jirtana wax badan ayaa qabsoomay waxaan sameynay oon diyaarinay qorshe howleedkii wasaaradda iyo hay'adaha garsoorka ay lahayd sanadka soo socday ee 2015 ilaa bilowga sanadka kale bisha May inta laga gaaray waxaan ku saleynay oo aan wax kasta lama qaban karo duruufta dhaqaale iyo midda guud ahaanba ma saamaxayso marka waxaan target gareynay meelaha ugu muhiimsan oo ay tahay in wax laga qabto waxaa ugu horeeya sida aad ka dheehan kartaan page-ka koobaad documentiga idin horyaala hirgelinta barnaamijka wasaaradda cadaaladda waxaa ugu horeeya bundaanta koobaad waxaa waaye dhisidda xafiisyada iyo horumarinta hay'adaha garsoorka federaalka iyo gobollada intaba si arrintaas wax looga qabto waxaa hadda socda oo dhammaystir u baahan xarunta maxkamadda gobolka Banaadir oo dayactir aad u xooggan lagu sameeyey waxaa sidoo kale xaruntaas la dayactiray qaybka oo iyadana xafiisyadii la dayactiray maxkamadda racfaanka waxaa kaloo la dayactir ku socdaa iyadana maxkamadda sare waxaa kaloo dayactir asagana derbiga wasaaradda cadaaladda ayaa lagu sameeyey marka justice-ka hay'adaha cadaaladda dayactir fiican ayaa wuxuu ka dhacay sanadkan hadda inta socda iyo kii hore dabayaaqadiisiba waxaan rajaynaynaa in dhismaha socda uu dhammaado bisha May ilaa July sanadkan dhismaha ka socda aan soo sheegnay xarumaha wasaaradda xarumaha hay'adaha garsoorka
waxaa sidoo kale noo qorshaysan oo aan noo rabnaa inaan sanadka lagu jiro iyo sanadka soo socda horaantiisaba wax ka qabanno dayactirka hay-adaha garsoorka xarumaha hay-adaha dayactirka garsoorka ee maamul goboleedyada cusub ee hadda dhashay iyo kuwa dhalan doona waxaan qorsheynay inaan xarumahaas waxaa ka mid ah aan rabno inaan sida degdeg ah wax uga qabanno hay-adaha garsoorka dhismayaasha hay-adaha garsoorka Kismaayo oo ah xarunta maamul goboleedka Jubbaland xarunta Baydhabo oo ah xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed beledweyne ama meeshii kale noqota xarunta maamulka la filayay Shabeelle iyo Hiiraan iyo meeshii kale oo iyaduna noqota oo hadda aan filayno inay noqon karto ama meel kale haday noqotana dabcan waa wareeji doonaa idan dhow Samareeb oo noqon karta xarunta maamulka gobolada dhexe priority-ga dib u dhiska sanadkan waxaa noo qorshaysan infrastructure-ka xaggiisa waxaa noo qorshaysan priorities-kaas dhinaca waxaa kaloo qorshe noo ah inaan isku xirno hay-adaha garsoorka heer federaal iyo heer maamul goboleed si arrintaas wax looga qabto waxaan doonaynaa inaan sameyno guddi ka kooban wasaaradda ay hogaaminayso oo ay ku jiraan xabsiyada xeer ilaalinta maxkamadaha iyo usluubta intaba waxaa noo qorshaysan inaan booqasho ku tagno xarumaha maamul goboleedyada si loo abuuro hanaan wada shaqeyneed heer gobol ilaa heer federaal waxaa noo qorshaysan inaan u raadino oon ka kaalmeyno khubaro ka caawisa dowlad goboleedyada dhismaha kaabayaasha garsoorka iyo horumarinta waxaa sidoo kale noo qorshaysan inaan dardar gelino xafiis loogu talagalay inuu xiriiriyo hay-adaha garsoorka heer gobol ilaa heer federaal oo la yiraahdo hay-adda isku xirka hay-adaha garsoorka oo luqo afka qalaadna lagu yiraahdo JISU intaasna waxay nooga qorshaysan tahay isku xirka hay-adaha cadaaladda ee heer federaal iyo heer gobol qorshaha priority-ga ama mudnaanta saddexaad waxay tahay inaan magacaawno guddiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah waxaa la magacaabay oo ansixintii baarlamaanka ay u harsan tahay guddigii golaha adeeg garsoorka oo nuqul ka mid a warqadii wasaaraddu kusoo barboos garaysay kusoo jeedisay oo idin hor yaallo waxaan kaloo filaynaa inaan sameyno guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo isagana sharcigii lagu aasaasi lahaa uu diyaar noo yahay aan qorsheynayno inaan golaha wasiirada horgeyno dhowaan dhinaca horumarinta sharciyada waxaa noo qorshaysan waxaan dhammaynay xeerkii nidaamka garsoorka oo golihii adeeg garsoorka hadda la magacaabay oo ansixintii golaha shacabkan ay u harsan tahay waxaa kaloo hortiina yaalla nuqul ka mid ah xeerkii nidaaminayay garsoorka dalka heer federaal ilaa iyo heer goboleed intaba waxaa kaloo noo diyaarsan oo isagana hortiina yaalla xeerkii dhisidda maxkamadda dastuuriga oo isagana golaha wasiirada hor yaalla waxaa dhowaan asagana inta lagu jira bisha May iyo June la geey doonaa golaha wasiirada sharcigii lagu dhisayay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo isagana dhismihiisa aan hore usoo sheegnay waxaan golaha wasiirada horgeynay siyaasadii sharciyeedkii dib u heshiisiinta iyo iscafiska oo golaha wasiiradu isagana ansixiyeen waxaan golaha wasiirada horgeynay siyaasadii sharci qorista dalku ku shaqeyn lahaa siday u isticmaali lahaayeen una wada deji lahaayeen wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha kale ee sharciyada sameynaya siyaasadii ay u isticmaali lahaayeen nidaamka siyaasad sharci qorista siyaasaddaas iyadana waxaan horgeynay golaha wasiirada priority-ga saddexaad oo mudnaanta afraad aanu leenahay sanadkan wuxuu yahay inaan kor u qaadno xirfadaha shaqaalaha hay'adaha cadaaladda waxaa noo qorshaysan inaan tababaro sanadlaah sameyno waxaa noo qorshaysan inaan sanadkan qiimeyn guud ku sameyno baahida tababar ee hay'adaha cadaaladda ilaa heer dowlad goboleed waxaa noo qorshaysan inaan tababaro lagu horumarinayo xirfadaha iyo kartida shaqaalaha hay'adaha garsoorka inaan fulino waqtiga aan ugu talagalnay inaan ku qabano halkaas ayuu isagana ku cadiyay waxaa kaloo noo qorshaysan inaan sameyno machadkii tababari lahaa hay'adaha garsoorka qalabeynana mudnaanta lixaad waa kobcinta xaaladda nololeed ee maxaabiista xiran
waxaa noo qorshaysan inaan xog ururin ku sameyno xabsiga dhexe ee muqdisho iyo xabsiyada kale dalka waxaa kaloo noo qorshaysan annagoo la kaashanayna taliska ciidamada usluubta iyo maamulka maxaabiistaba inaan qiimeyn ku sameyno xirfadaha ku habboon in maxaabiista la baro si ay hodhow markay ka soo baxaan xabsiga ay usoo baxaan iyagoo xirfado leh mudnaanta ugu dambeysa ee toddobaad waa dayactirka xabsiyada dalka waxaa noo qorshaysan inaan xabsi oo hadda xaruntii laga dhisi lahaa la helay qorshahana noogu jirta in la bilaabo inkastoo aan ognahay inuusan muddo fudud ku dhammaan doonin oo sanado badan qaadan doono xabsi loogu talagalay dadka gala dembiyada culculus xabsigaas waxaa la yidhaahdaa muqdisho major complex wuxuu qorshaysnaa muddo dheer laakiin waxaa hadda gebangeba ah qorshayntiisii waxaana rajaynaynaa inuu bilaabo sanadka hadda lagu jiro bisha June ama July inuu bilowdo ayaan rajaynaynaa ugu dambeyn bisha September waxaa kaloo dayactir ka socda oo rajaynaynaa in la dhameystiro wajiyo kala duwan leh faces kala duwan leh xabsiga dhexe ee muqdisho waxaa kaloo rajaynaynaa inaan dayactir lagu sameeyo xabsiyada xarumaha dowlad goboleedyada cusub xarumahooda waaweyn sida Kismaayo Baydhabo Beledweyne iyo Dhuusamareeb mudanayaal aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin qorshaheena halkan ku qoran iyo waxyaabaha aan qorsheynayno inaan qabanno waxay salka ku hayaan document kale oo aan rajaynayo English ayuu ku qoran yahay waxaan la wadaagaynaa shaqadaas leeyahay hay'ada international hay'adahaasi wuxuu qayb ka yihiin priority-ga new deal-ka compactiga priority-ga saddexaad oo la yiraahdo PSG3 qorshihii rule of law-ga ama Somali rule of law work plan oo annaga iyo international partners ka naga dhaxeeya priorities ku qoran ayuu qorshaheena sanadka 2015 salka ku haya time-ka documentiga wuxuu cadeynayaa waqtiga oo quarters dabcan loo sameeyo aan dates ku qornayn iyo qarashka ku kici kara 12 bilood ee soo socota waa laga yaabaa documentiga aan idin la share gareynay oo actionska hay'adaha cadaaladda sheegay inuu kooban yahay laakiin waxaa si faahfaahsan u qoraya documentiga kale ee rule of law aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin guud ahaan daawadaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan oo qayb ka ahaa taxanayaasha barnaamijyada kulamada su'aalaha lagu weydiinayay wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaana barnaamijkan uu ku saabsanaa kulan su'aalo lagu weydiinayay wasiirka wasaaradda garsoorka dowladda Soomaaliya iyadoo kulankaasina uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono aan idinkaga tegayaa nabadgelyo